nimankii qaban qaabinay ciyaartaa waxaa ka mid ahaa weli axmed xaawo iyo allah u naxariistay sacad maxamed shire labada nin ee labada kooxood kala watay labada nin bay ahaayeen annagu waanu ka yaryarayn labada nin baana watay ciyaarta qadar haddaan ku dhaa waxaan anagu nidhi ama aan ku heshiinay labada kooxood in ay kooxda guriismina soo qaato diriis cad ama garan cadun kooxda nooc doono ahaado kooxda iftina ay soo qaato casaan warqaar baa gacmo dheere cad soo qaatay haddii doonaan ama gacmo dheere cas waayo ma jirin dee diriis gaa ama diriis lagu ciyaaro wax waddanka markaa la soo noqday burburuska ahaa markaa ciyaartaa waanu ciyaarnay waan sii xasuustaa ciyaardee aad u wanaagsan bay hadoode xitaa waxaa jiray in ay siriyan waxaya Omar ninkaasoo muwaadin dhaba ahaa runtii oo hargii habeen taagnaan jiray inuu ciyaaraha maartay xitaa wasaarad maalgelisa ama mushahar siisa ama dhaqaale ku siisa ma jirin waxaan dad xilqaamun bay ahaayeen markaa waa ciyaartaas ruux xitaa dagaal ba ka dhacay laba ciyaartooy baa isku dilay oo casaan ka qaatay jibriil iyo cali noqo anaga noo ciyaaray allah yarxamay cali noqo wulintay imka wulintay cali noqo jibriil sabaloshana uu joogaa markaa labada nin bay istilay jibriil sana aanu ciidankii xamar ka wada yimid horseed buu ciyaar jibriil jibriil horseed buu ahaa ismaan laba qori isna horseed buu ahaa jibriil markaa nimankaas ay ahayn nimankan wada ciyaarinay markaa uu fact ciyaarta waxba kale aad uu kulli cabdiraxmaan dhagaweyne wacdaro ku muujiyay ciyaarta sayda gool dhaliy wanaagsan xitaa dabaaldeg badan wanaagsan buu sameeyo celebration wanaagsan buu sameeyay marka adu intaasan ka sii xasuusta ciyaarta kulli adu ciyaar aad wanaagsan bay siriga waxay Omar calawalaha koobaad wuxuu ahaa Allah u naxariistay daahir oday calawalaha labaadna wuxuu Allah u naxariistay xukuntoor labada calawale ay kala ahaayeen waxay ku dhamaatay 3-2 saad sheegtay laba waxa dhaliyay Cabdiraxmaan dhagaweyne oo noqday ciyaartoygii ugu horeeyay ee shabakka gool ku yaala Soomaaliland gool ka dhaliyo noqday goolka saddexaadna Maxamed Yusuf Libaax ayaa u dhaliyay Guriysamo labada gool oo unqaday la timi gool kamid ah waxa dhaliyay penalty waana penalty ugu horeeyay buu noqonayaa Awil Ibrahim Ismaaciil Roodi Mareykan buu ku nool yahay sorry saacilo ay dhaliyay penalty-ga oo difaacaha oo number 4 ka ciyaariyay goolka labaadna waxa dhaliyay Awil Ibrahim Ismaaciil Badri 3-2 ay ku dhamaatay tartanku sii socday sida kuma joogsan xamaasadda iyo xiisiisu sii socday waxa dhici jirtay ciyaaraha qaar inaad ku badisaan 12 gool ha waayo kooxaha meesha maray qaar kood baa iska hafayo ka caafimaadka iyo jamhuuriya iyo qaar ayaa ciyaari jiray ha ciyaartoygii aad wada safan jirteen kooxdiina markaa Guriysamo ama leynabka ahaadaan ama dhamaan loo kala isku wada daro yad ka sii xasuusan tahay bismillaahir rahmaanir rahiim wallahi waan ka xasuusanay dad badan waxaan ka xasuustaa weli axmed xaawe oo hadda ninka halyeyga ee qaban qaabiyaha kabta goolaha waxaan kow xilliga waxa gool loo hanin leeyahay Cabdi Awliya magac noocaas ah uu naalis buu ahaa wuu jooga hadda xagga linka biliska meelahaas uu nagay mid aad in fact in badan lama soo joogin oo gool kale oo aan sheegi doono insha Allah ayaa markii dambe loo qabtay gool wuxuu ahaa ninkaas uu ahaa difaaca waxa joogay aniga iyo weli axmed xaawe الله مساعد يا كلي أحسن محمد حاشي لو نشري محمد حاشي أو صدق يا صوب بدنا كراعه سنافر تقابل تري sometimes بالحلقة ها لباح جابوش الله مساعد محمد عبد الرحمن دقويري ياسين عمر أيوة شبعان ويرك عيالتي أدو رك بدن بيها بالحلقة أدو كل ينكستو مركي دم بيس بدل له ده رك بدل كصوب بيرن قارنا يكتجين لكن إيد حسن عيال الله إله ونحرسون حيشنا كورابية مركان لمن مع فولجو ayaan ka sii xasuustaa intii bariga kooxdeeda ahayd leen ka ahayd marka okay waa soo ciyaarteen inta badan kooxaha wad ka badiseen ma xasuusan karo koox kaliya xitaa bareejo idin la gashay dadka marka ciyaaraha xiiseeya markay arkaan isku xidhkiin iyo saac ciyaaraysan waxa lagu xaman jiray kooxda Guriysamo inay naadi ahaayeen intii goxontiga la joogay oo Abakar ka yimaadeen xagga reerka kelima aha iyaga oo markaa koox ah oo iswato oo Abakar ku ciyaari jiray oo tartaniga xabashidu ciyaari jireen taasi markaa ay sabab u ahayd in la loodin waayo marka ay Abakar kooxdu ay joogtay miyaad ku soo gaadhay may anu taa kuma soo gaadhin
waxaan ku maqnaa anigu xamar waan istaan dee sheekada hore kusoo sheegay anigu guushaan joogay marka intii 3 sano ee qaxootiga la joogay ayay iyagu halka ku ciyaari jireen bakor anigu laakiin markii waddanka la soo galay ayuun baan hargeysa yimid marka kooxda kuma jirnaa bakor ku ciyaari jirtay waayahay tartankii si xargala u qaadeen waliba dhibco badan baa ku qaadeen kooxaha ugu adkaa ee aad waajahdeen onkod iftanood ka sheekaysay oo marka dambe onkod loo bixin doono iyo guryasamo oo marka dambe Al-Nassr baa la bixi doontaan Sheekh Madaro markaa Olol Wati iyo Cabdi Nuur iyo Sham ama Batroolka oo ay Xuseen Maxamed Xoore iyo maane iyo Cabdi Xaaji Allahu naxariista Allah yarxamsa Mukhtaar Xamarow niman ay ka ciyaareen ayaa ugu adkaa koobkii qaade qalab badan oo isboorti waddanka mu ool koobka leedin guddoonsiye markaa horyaalkii ugu horeeyay ee Soomaaliland noqotaan ama Hargeysa ayn ku eeka bismillaahi raxmaani raxiim khadarow horta wax koob la yidhaa iyo wax kaloo ama dee jaayisad ama wax marka ama biladoo la siiyay habeenaatay ma jirin laakiin markaa waxana la siiyay wax alla wixii ugu qaalisanaa waddanka yaalay oo calankii Soomaaliland weliba calankii kan ka horeeyay ee cadaanka dhexda akhtarka goolada akhtarka ahaa ayuu ahaa waxaana la guddoonsiiyay madaxweyne ku-xigeenkii waddanka markaa Xasan Ciise Jaamac ayaa la guddoonsiiyay khadarow koob ahaan calankaasna loo siiyay markaan koobkii qaadnay marka waxa koob la yiraahdo iyo waxaasi ma jirin waa run oo Allahu naxariistay madaxweynaha xilligaas Cabdiraxmaan Cali wuxuu ku maqnaa Faransiiska marka Xasan baa joogay oo idin guddoonsiiyay calanka labadii koob ku xigay oo aan waqti badan baa u dhaxaynin dadku xiiso badan bay ciyaaraha u qabeen labada koob ay idinka qaaday oo saddexda tartan cid idin kula tartantay isku xigay ma jirin kooxuna kulli way sii adkaadeen oo dad badan baa xamarkiima kooxa u soo galay idinka Al-Nassr marka Al-Nassr baad ku bilowdeen magaca Al-Nassr aad ku bilowdeen waxa idin iman jiray ciyaartay ka yimaada khaliijka oo shabcaan uu idin yimid farxaan baa idin yimid xasan kaysa idin yimid mustafa musadala baa idin yimid nin kasta oo khaliijka ka yimaada oo ama imaaraadka ama qatar oo aad looga jiray wuxuu iman jiray Al-Nassr may dhici jirin Naasir Xareedun baa u ciyaaray onkod inta kale Al-Nassr baa u ciyaari jireen marka xiriirka ka dhaxeeyay Al-Nassr iyo dhalinyarta ka timaada khaliijku mid caynkay u ahaa okay taas way jirtaa khadarow xiriirka ka dhaxeeyay gadar oo markaa ay u badnaayeen dhalinyarada Hargeysa ma jirto waliba dadkii askartii waxa nooc ahaa iyo naadigeyga waxa ahaa waxa Weli Axmed Xaawe waayo waliba reer gadar buu ahaa oo 87 iyo 86 adu meelaha ayuu Hargeysa ka tagay oo walaalkii gadar jooga ayuu soo saaray inuu askafiis marka waliba joogi jiray gadar isaga markii dambe aduu la joogay Abakor sagaashamaadkii intaan waddanka la soo gelin ayuu gadar skiimadu ku soo noqday waddanka iyo halka qaxootiyada marka xiriirkayga aan naadigayga Al-Nassr iyo kooxaha ama dhalinyarada reer khaliijka gadar ka imanaya waxa sababaha Weli Axmed Xaawe waayo isaga xitaa diriiskayga marka la eego wuxuu gadar baa loo keenay jiray kubadaha gadar bay nooga iman jireen kabaha iyo everything wax kasto markaan ku ciyaarnaa xaqiiq naadigaygu waxay nooga iman jireen dooxa ay inta badan nooga iman jireen xildhibaan Weli Axmed Xaawe sababaha sheekada ama arrinka markay saddex aad koob qaadeen horyaal iyo laba koob kolley kooxii kalena ay soo adkaadeen waxa dhacday inamadii niyad jab ku dhacay Al-Nassr dadku badankoodu way kala tegeen qaar naadiyo kala galay qaar kubaddaba ka nastaa Al-Qamar koox loo oran jiray oo wadaado bandhig bariga samaysatay saddex laacib oo halbowlaaba u galay Daabush iyo Libaax iyo Cabdiraxmaan Al-Nassr bay u galeen waxa Mustafana uu ku jiray waxay u tageen taharo sii jooga oo istoonkood u ciyaari jiray waxa yimid Cabdi Fiid hore u ahaa Al-Qamar ha isagoo koox ka soo wareegay Jibriil Sambaloosh wuxuu ka soo wareegay onkod Axmed Ali adiga iyo Cabdiqani Kalluun oo ciyaartay aad soo saarteen waxa timaadeen onkod ha Yaasiin Cumar Yare wuxuu tagay Batrool ku tagay onkod in aad Axmedow aad timaado markaas sidee bay oo tartan badan idinka dhaxeeyay sidee bay muxuu ahay kugu suurta gashay horta khadar waa runoo kooxda qule ficilta ku naga dhaxeeyay ama dee aanu ishaynay ama sheekadu derbi ahaan jirtay ama el clasico waxa nimanka yiraahdaan ay ahaan jirtay anigii onkod baan ahay koob kasta oo uu qaadno nimanka naga hor yimaadeen dhibaayaga ahaayeen ama kaalinta labaadba soo gala ama dee haddaan qaad weliga qaadayay marka sababta aan kooxda saa aanu hayn aan u tagay horta waxa ahayd kooxaanu aad ciyaartooygeeda isugu dhownahay ama marka la eego deegaan ahaan ama daan ahaanba aanu siyar xignay oo siyar badnayn
in fact runtii iyagaana iga codsay inaan u imaado anuu markay arkeen kooxdeedii yar wax ku yar dhaceen oo ay kala yar biqbiqday iyagaa iga codsaday inaan u imaado oon u ciyaaro iyaga markaa saasaan ugu yimid markaa yarkan cabdiqani axmed yare ama cabdiqani kaluun loodhan jiray oo isna runtii aad difaac iyo weerar bidixii midig labadaba ahaa haa isna waxay damceen u yeedhaan markaa yaasiin cumar yare ninkii loodhan jiray oo batroolka u tegey ayaa damcay inuu cabdiqani ka haysto dabeeto anigaa dee kaga awood bato cabdiqani saasaan unkad ugu keenay markaa unkad baan saa ugu ciyaan aniga cabdiqani sanadkaa tartankaa waxaa qaaday alqamar baa qaaday unkadna tuugay galeen kadib ciyaarihii dambe bilaamaya alnasar dib bay isugu soo noqotay waxaa gasheen tababaro adag horyaalkii baa bilaabmay horyaalkii waxaa nasiib u heshay inay u faqaado 94kii laba tarkoobo degdega oo midna loo dhigay cabdilaahi daahir dhidar allahu naxariiste oo uu dhaba dhigay iyo koobkii horeeyo aad isugu dhawaanay unkad ayaa qaaday taariikhda markii halkaa ka nimaadno waxaa bilaabmay dagaalo sokeeye markii dambe oo runtii waddankeena ka dhacay alxamdulilah laga soo kabtay markiiba intaa kadib kubaddiis halkii ma kasii waday mise waa joojisay horta may khadarow dagaalkaa sokeeye markii uu dhacay ayaa horta igu dumisay kubad professional ama aan koox u ciyaaro oon garoonka ka soo muuqdo waqtigaasa igu dambeysay laakiin kubaddii iyo ciyaartii dee kamaan bixinoo marka intii dambe waxaaban u ciyaaraya dee caafimaad ahaan iyo haa laakiin kubad aan koox u ciyaaro garoon ka soo muuqdo berigaasa igu dumisay 94kii axmed bosishinka aad ka ciyaarto sida horeba ugu dhawaajiyay waxa weeye number 2 buu ahaa number 2ga niman iyaguna fiicnaa baa jiray waxaa ka mid ah Siciid Daanyaro oo onkod u ciyaari jiray oo markii dambena u wareegay batroolka waxaa ka mid ah Ganto oo u ciyaari jiray Ufo ama kooxda loo jeedo Sheekh Madar wacadina shakhsiyaad tiriib u ahaa waxaa ka mid ah Faadhaga Qol oo isla haa adigu waxaad ahayd number 2 kaliyaata sida ay imika u ciyaaraan bariga u ciyaari jiray weerarka waxaad ka caawinaysaa Yaasiin Cumar Yare oo 7 ku ahaa aad u dheerin jiray ayaad ka barciyaa jirtay arrintaasi ma adigu ba yani caalamka runtii iyo waddankeena kama jirin ma adun bay kugu dhalatay mise waxaad hore u soo aragtay buu ahaa wallahi khadar arrinkaad sheegayso horta imika waa runoo dee sidaynu ciyaaraha u aragnay baalka labada baal ee tiriga ama tuugu iyagaaba weerarka ka kubada badan oo waad sad aragtay dee nimankan dee caalamka ciyaaraa baal difaaca baalka imika inta badan weerar bisu haystaaba oo kubadda inuu soo karooso inuu soo galo ayuu tahay taasi waqtigeennii hore may jirin oo ninka difaaca ama baalkii halkiisaas u buuquturnaan jiray haa oo dhiida khadka dhexe ama soo ilaashado runtii aanu inaan dhaqaaqoon hore u dhaafo oo ilaa koonaha soo karooso kubadda oo aan caawiyo weerarka cidigumay dhalin kamanaan adag dee saad u waqtigaad weyd may jirin sayimka ciyaaraha loo daawado caalamka tababar lagu siiyana muu jirin khadar runtii wax aniga ilaahay ugu alhumeeyin buu ahaa inaan dee maskaxdayda fikradeedun baa noqotay inaan anugu kubaddeeda hore usii wado oon ilaa weerarka gaalo laakiin cid markaa igu taageertay ama tustay ama casharkaa ii dhigto saa xitaa infact berigaan joogay muqdisho aan joogay naadiga ciyaarayay runtii inkastoo beriga ka ciyaarayay lambar 4 oo 4 aan ahaa dhexaan ahaa difaac dambe aan ahaa isagu oonan baal ahayn haddana dee cashar ahaan umaan soo qaadan inaan baalkaa ka galo anoo difaaca oon weerarka caawiyo aragtina kumaan anagoo caalam iyo dee cid kaloo ciyaarsa kamaan anaga anugunbaa wax ilaahay markaanu fikirkaygunba hayd inaan saa hore ugu socdo marka intaa laga yimaado waxyaabaha aan xasuusan karo iminka waxa laga joogaa almost 30 sano aan Axmed marka aan soo xusuusto ama aan ka sheekay waxa kamid ah karooska marka kubadda koonaha aad soo laadayso ama ciyaarta faawul yimaado oo kale kubadda madaxa lagu boobayo karooskaagu aad buu uga tilmaanaa ciyaartoyga kale oo dhan oo xitaa waad kaga fiican ciyaartoyga kale inaad karooskaagu caynka ahaado ma waxaad tababar ku qaatay baa sidoo kale mise wax yani hibo ilaahay kuu dhaliyay ayuunbuu ahaa may khadar wallahi wax tababar lay siiyey wax kale ma helo waxay adun dee hibo ilaahay siiyey saad u sheegtay marka waxaan xasuustaa ciyaartoyga qaar weerarkii marka aan kubadda koonaha u soo laadayo ama intaan galo aan saa u soo celinayo kubadda waxay odhan jireen nimanka kale weerarka ah kooxdeedii kubadday noo soo laadaan waanu ka baqannaa kubaddaada waan ku raaxaysannaa runtii markaa karoos yaro macaan oo dee halkoogana yimaada qabowna ayanu soo laadi jiray runtii
iyadoo waqtigu kooban yahay oo salaadii maqrib la eedaamay waxaan doonayaa inaan hal ciyaartoy ku weydiiyo nin difaaca baad ahayd inta badan weerar baad ilaashinaysay ninkii kuugu burburka badnaa ee aad ku xisaabtami jirtay weeraryahanka ahaa kumuu ahaa khadarow horta rag badan way jireen dee markaa markuu ninka difaaci kubadda dee garoon ku jiro kolley weerar fara badan oo dee uu ka cabsi qabo ama uu iska ilaalinaya way jiraan laakiin nin baa dee argagax nagu ahaa naga runtii oo noo tilmaanaa ninkaasina nin kalmeena wuxuu ahaa jibriil sanbalowshuu ahaa jibriil buu ahaa sababtuna wuxuu ahaa nin aad u dheereeya labada lugood ka laada kubadda xirfad iyo tiknikal badanna aad u lahaa markaa haddii uu kubadda mar kaa tuurto uu jaanis kaa helo si aad ku gaadhaa way adag kaan jirta waa inaad daba gurguurato inood markaa ama aad faawul ku gasho ama si kale laakiin hadduu kaa jeesto goolkana waa shabag uu ruxmayaaba wuu laaday olready waa labada lugoodna aad buu uga ciyaari jiray nin dheereen aad buu ahaa markaa ninkaa jibriil sanbalowshaa ninkan aad uga cabsan jiray koox ahaan marka aad idinkoo kooxdan ugu fiicnayd haddana kooxda diyaargarowgiina markaad ka hor imanaysa aad ku xisaabtami jirteen kooxdaba ahayd horta kooxaha ugu nacelin jiray ugu badnaa aduu afar kooxood beer aduu ugu adadkaa horyaalladeeda inta badan markaa kooxda marka laga reebo 3 kooxood baan aduu yar waa ufo iyo onkod iyo petroolka kooxda la odhan jiray laakiin kooxda dee noogu adkeed mar kastaan isla googii jirnay naadiga onkod buu ahaa naadiga onkod buu ahaa oo ciyaartina il classica la odhan jiray oo aad baa loo eegi jiray warba labadii kooxood ee adkaa baa la odhan jiray hadday noqoto koob yaro kaloo la qabanayo final laga isugu jirnay horyaalka hadday noqoto iyagaa dhibc ahaan lagu soo xigi jiray markaa kooxda onkod bee kooxda qure inta badan aan iscelin jirnay ama aanu ka baqan jirnay axmed cali faarax madey ciyaartoydii hore ee kooxda sancada muqdisho sidoo kale u soo ciyaaray kooxaha heerka koobaad ee somalilan sida kooxdii guryasamo annasar aad baad u mahadsan tahay daawadayaal iyadoo wakhtigu kooban yahay haddii ilaaha awoodali qadaro isugu iman doono barnaamij la mida kuwan oo kale inta ka horeysa waa aniga iyo saaxiibkay madey saaxiibkay jamaal jante sawirqaadahayga maxamed hemajes iyo dhammaan tiimka agro football show idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh